السلام عليكم ولا عليكم أهلا برتي يوتيوب كه وحن عاوي سيدا مركل قصة كلو عجيبة wuxuu ahaa nabi rasuul ilaahay qisadiisa waxa lagu sheegay quraanka kariimka waxay ku soo aroortay suuradaha kala al-imraan al-maa'ida an'am iyo suurad wada magaciisa taas oo suurad nuux sida quraanka kariimka ku sugan waxa loo diray qom kuwaas oo caabudi jiray sanabada nabi nuux wuxuu ahaa dhowr sano looga oo rabbi u soo diray dadkiisa inuu hanuuniyo uguna diga cadaabka aakhiro asigoo leh tolkaygu ee caabuda mana lihiin ee baan asiga ahayn waxa idin kaaga cabsanaya cadaab maalinta weyn markaas bay wuxuu ugu jawaabay runtii nuuxow waad baadiyaysan tahay markaas ayuu nabi nuux ugu jawaabay tolkayga ma baadiyaysani hase ahaatee waxaan ahay rasuul eebba soo diray oo waxaan idin gaarsiinayaa risaaladii eebbahay oo waxaan idin la talinayaa eebba waxaan ku ogaa waxaan idinka ku ogeen markii nabi nuux ogaaday inay rumeey dooneen intii hore u rumeysay mooyee ayuu wuxuu yiri kii barbaariyo dhulka ugu tigin qof gaal ah oo wuxuu sii raaciyay hadaad qof gaal ah dhulka ugu tagtid waxay baadiyeen doonaan adoomadaada mana dhalayaan ku xun oo gaal mooyee kadib baa eebbe faray inuu markab sameeyo una markabkaasi saaro lamaana kastoo dhulka ku sugan kuwaas oo rumeeyeen nabi nuux calayhi salaam hase ahaatee kuma jirin xaaskiisa iyo wiilkiisa ayagu waxay ahaayeen gaalo dabadeed baa waxaa yimid duufaan oo dadkii bay biyihii ku dartay si aad ka soo dhinkaani qiso kale ula socotid ambiyadii rasuushay fadlan subscribe garee channelka oo nagu soo biir. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.